Robert Makari danjiraha UK ee wadanka Iran oo ciidanka nabadgelyada Iran ay xireen muddo 3 saacadood kadib dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay Tehran ayaa dib u helay xorriyadiisa. Qabashada danjiraha ayaa timid kadib markii lagu eedeeyay in uu taageeray banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda Iran kadib markii ay qiratay in ay si khaldan u soo riday diyaaradda Ukraine taas oo ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa. ciidanka nabadgelyada ayaa xiray danjiraha UK ee Tehran fiidnimadii Sabtida muddo 3 saac ka gadaal isu soo baxya ardayda ay ka qayb galeen oo ka dhacay banaanka jaamacadda Amir Kabir ee Tehran kaas oo lagu dalbanayay in uu xilka ka dago hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei sida ay ku warantay warbaahinta Iran. xariga Robert danjiraha UK ee wadanka Iran waxa soo faragelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran iyada oo ku guuleysatay siideynta safiirka. wasaaradda arrimaha dibadda ee UK ayaa cambaaraysay xariga danjiraha iyo sida loola dhaqmay waxaana ay ku tilmaantay xarigaas ku tumasho cad oo loo geystay xeerka caalamiga. wakaaladda wararka ee Tense News Agency oo laga leeyahay Iran ayaa sheegtay in qabashada Robert danjiraha UK ay timid intii uu socday banaanbax lagu qabtay banaanka mid ka mid ah jaamacadaha Tehran.